degmada Ceegaan ayaa waxaa muddooyinkii dambe ku soo badanayay dhisidda goobaha wax lagu barto iyadoo ay kaliftay baahida loo qabo waxbarashada taasoo ay dadkii xoolihii ka dhamaadeen ku soo qulqulayeen gudaha deegaankaasi haddaba madrasadan ayaa dadka deegaanku ay ku bilaabeen iska wax u qabso taasoo arday kor u dhaafisa 150 arday lagu bari doono quraanka kariimka haddaba dadweynaha ku dhaqan degmada Ceegaan ayaa waxay ka codsanayaan ummadda muslimka iyo waliba qurba joogta u dhalatay deegaankaasi inay madrasadan wax kala soo qabtaan wana kuwan iyo ka hadlaya arrimahaasi أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dadka muslimiinta ay muslimiinta dhamaan asxaabina waa malcaamad waa madrasad quraan oo qabiya ah hadana aan halka ay joogto mooyaane aan hadda aan la qaado oolin baaqina dadka muslimiinta inay ka soo qayb qaataan bangiga ilaahay inay wax dhigtaan malcaamadaas madrasada quraanka waxay ku tahay degmada Ceegaan ee malcaamadu ka soo baxaa waa meeshii diinta lagu bariyay dadka waa meel wax la gashado meesha ku qaalisan dadka muslimiinta waxa leeyahay ka soo qayb gala waa sadaqa jaariya ah man dal ladii yuqridu Allah qardan hasanan fa yudaa'ifu lahu keeba ilaahay amaan wanaagsan ama sanaya oo ilaahay u laban laaba waxaan taaganahay madrasad qabiya oo malcaamad quraana malcaamadaas oo dadka deegaanka jooga ay intii hore ay ku kiciyeen halkaan ay ku qoday dhaqaalihii intidii loo helay walaalaha iyaga muslimka u joogayna ama dalka ha joogayna ama dibadda inay naga qayb qaataan sadaqada jaariyada dadkeena ubadkeena aynu wax ku baray inay ka soo qayb galaan kan mashruuc aan ku hayno ee aan maanta taaganahay waxa weeye waa madrasadii quraanka kariimka lagu dhiganayay ardayda yaryar ee wax ku dhiganaysay meeshan waa degmada Ceegaan marka halkan ayda taala waxa weeye ama dadka islaamka loogu baaqayaa waa malcaamadii quraanka kariimka lagu dhiganayay ardayda yaryar ee ku dhiganaysay waa meeshii laga bilaabay waxbarashada diiniga ah hadhowna ay maad u gudbiyay ninkii doonay ayaa marka dadka islaamka ama joogeen ama kuwa reer Ceegaan ee dibadda jooga ahaadeen ama dadka kale ee muslimka ah ahaadeen waxa loogu baaqayaa inay madrasada ka soo qayb galaan oo ilaahay dartiina wax ka shadaan caamada quraanka lagu dhiganayo waxa halka isaguna ka hadlay maayirka degmada Ceegaan Axmed Ciise halkan waa degmada Ceegaan malcaamada oo qabiya ugu horeysa waxaan u mahadcelinayaa Allah awood badan baan mahadcelinayaa malcaamadaha degmadu aad bay far badan yihiin waxa sababtay in la bilaabo kuwa hor leh iyadoo degmadu ay abaar soo martay dadkii ayaa soo barakacay oo soo xarooday 500 oo qoys ama 600 oo qoys markay soo xaroodeen way qaadi weydeen malcaamadii way qaadi weydeen waxay noqotay waxa la heli kariyo wax la haban kara waa mid hor la jeexo waxaan ku codsanayaa hay'adaha muslimka ah iyo dadweynaha muslimka ah iyo hay'adaha muslimka ah waxaan ku codsanayaa in malcaamadaas xilli abaarada nagu ku jirna u qabsatay gurigii lagu dhigi lahaa dadku qaadi waayay soo xarooday 600 oo qoys oo ku soo xarooday Ceegaan gudiyeeda sadarteeda malcaamadii iyo gurigii way buuxsameen waxaan ku codsanaynaa qurba joogta degmada Ceegaan u dhalatay iyo hay'adaha muslimka ah iyo shacabweynaha muslimka kale daawanaya si degdeg ah oo caawsan oo dhamaystirtaan Liibaan Axmed Ciise Liibaan qaran Saab TV degmada Ceegaan